Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wax ka baro taariikhda wadamada adduunka, wadankan ugu weyn, kan ugu dhaqaalaha badan iyo kan ugu awooda badan. La soco barnaamijka Dhulmar maalin kasta oo Arbaca ah. like a Hellcat. Si guud maanta xubintan waxaan ugu qaadan dhigi doonaa adduunka anagoo ka fiirinana dhinacyada ay ka mid yihiin bulshada, dhaqamada, dhaqaalaha iyo dhinacyo kale oo fara badan. Adduunkan aanu ku noolnahay waxa uu ka kooban yahay marka si guud loo eego 5 qaaradood. Haddii aan si kale u dhaho, waxaa ku yaala 195 wadan oo 193 ka mid ah ay xubin ka yihiin golaha guud ee qaramada midoobay, halka labada soo hadhay ay ka mid tahay Falastiin oo loo aqoonsan yahay dal madax bannaan. Dalka ugu weyn adduunka waa San Marino oo Yurub ku yaala, kaasoo la aaminsan yahay in la degay 301 ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaatu wasalaam. Adduunka dadka ku nool waxaa tiradooda lagu qiyaasaa 7.6 bilyan oo ruux, sida ay muujinayso natiijada tirakoobkii ugu dambeeyay ee la sameeyay sanadkii 2018. Waxaa la aaminsan yahay in dadku inay kordhaan ay qaadatay muddo 2000 oo sano ah. Waxaa aad loo xasuustaa abaarihii dadka ugu badan ee adduunka ku geeriyoodeen ee kala ahaa abaartii weyneed ee dhacday intii u dhaxaysay 1315 ilaa 1317 iyo abaartii kale ee loo yaqaanay dhimashadii madoobeed ee iyana adduunka soo martay 1350. In dadku ay kordhaan waxay aad u badnayd intii u dhaxaysay 1955 ilaa 1975, waxaana ugu yaraa 2010 ilaa 2015 sida ay muujinayaan qoraallo la sameeyay. Waxaa jirta saadaal muujinaysa in marka la gaadho sanadka 2050 dadka adduunka ku nool ay gaaraan 10 bilyan oo ruux, halka marka la gaadho 2010 la saadaaliyay in tirada dadka adduunka ku nool gaari doonaan 11 bilyan oo ruux. Sanadkii 2011 waxaa la aaminsan yahay in carruurta adduunka ku dhalatay ay gaadheen 135 bilyan. Sanad kasta qiyaasta 50 bilyan oo ruux ayaa adduunka ugu dhinta sababo kala duwan, sida xogtan sheegayso. Dadka da'da dhexaadka ah bulshada caalamka waxay ka yihiin 30%. Dalka Shiinaha ayaa adduunka ugu dad badan, waxaa ku soo xiga Indiya iyo Mareykan. Waxaa ugu dad yar Fatikaanka oo ah dal yar oo ku dhex yaala Talyaaniga, waxaana dadka dalkaasi u dhashay lagu qiyaasaa wax ka yar 600 oo ruux, iyo dadka kale ee yare ee la yiraahdo Tuvalu oo ku yaala badda Pacifiga. Afrika waxaa ugu dad badan Nigeria, Ethiopia iyo Masar, halka wadamada ugu dadka yarna ay yihiin Seychelles, Comoros iyo Djibouti. Adduunka waxaa mara 165 webi, 7 badood iyo 117 milyan oo harooyin waaweyn ah. Webiyada waxaa ugu waaweyn Amazon iyo Nile, waxaana jira webiyo kale oo aad u waaweyn oo dalal iskaga gudba. Sidoo kale qiyaastii 2,000 oo jasiiradood ayaa adduunka ku yaala, waxaana jasiiradda ugu badan ku yaalaan dalka loo yaqaano Indonesia. Wadamada dadkoodu ugu aqoonta badan yihiin waxaa ka mid ah Israa'iil oo dadkiisu 49% ay yihiin dad aqoon leh. Waxaa ku xiga Korea, Ingiriiska, Mareykanka, Australia, Finland iyo Norway. Wadamada dadkoodu ugu jaahilsan yihiin waxaa ugu horeeya Gambia oo dadka aan waxba akhrin karin qorina karin ay bulshada dalkaasi ka yihiin 63%, waxaana ku xiga Mali, Sierra Leone iyo Afghanistan. Dalalka ugu jaamacadaha badan waxaa ugu horeeya Hindiya oo ay ku yaalaan in ka badan 8 bilyan oo jaamacadood, waxaana ku xiga Mareykanka, Argentina iyo Spain. Xagga dhaqaalaha haddii aynu eegno, adduunka waxaa jira hay'ado maamula dhaqaalaha adduunka, waxaana ka mid ah hay'adda lacagta adduunka ee IMF la yiraahdo iyo Bangiga Adduunka. Lacagta ugu badan ee adduunka ugu isticmaalka badan waa dollarka, waxaana ku xiga Yuroga, Yinki Japan iyo Pound oo ah Ingiriiska. Lacagta Vietnam ee Dong ayaana loo aqoonsan yahay tan ugu qiimaha liidata adduunka oo dhan. Maanta halkaas uu ku eegyahay barnaamijkeennii. Fadlan subscribe-ta ha naga iloobin, furo jariska
calaamadda gambareelkana taabo si muuqaal kasta kuu soo gaadho isla markaan soo dhigno. Like a Hellcat.